kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada sheekadii mulkiilaha qaranka. sheekadan waxaa qoray wariye Maahir Jaamac Aadam waxaana codaynaya oo aqrinaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. channelka ogaalka Audiosom iyo YouTube-ka iyo barta Facebook ee Maahir Jaamac Aadam ayaad nagala socotaan. qaybtantii ka horeysay waxa ay noo joogtay iyadoo aan bilaabay inaan ka guro booskaygii ahaa aamusane indhaha kala socda dhacdooyinka qolka. waa anigii ku soo sheegnay qaybtii hore inaan duubay cod 6 daqiiqo gaadhaya oo aan kaga warcelinayo doodii ahayd magaalooyinka Soomaaliyeed inay qowmiyado kale hore u lahaayeen. waxaa bilowday dood iska dhicin ah oo laga soo horjeedo fikirkayga. Master Wajani oo soo dhexgalayna wax badan oo culays ah oo soo wajihi lahaa ayuu ka saaray meesha oo fikradeeda ayuu soo dhaweeyay. wada hadal gudaha qolka kadib waayadii uu ila soo hadlay mid ka mid ah labadii nin ee aan qolka ka dhex magacaabay oo admin ka ahaa groupka. deedna waa anigii soo wariyay in laygu daray madaxda qolka oo adminka aan ula jeedo oo aan 9 qof oo dhankayga ka socda aan ku soo daray. waynagii soo sheegnay inaan dhinaca kale xiriir la sameeyay siyaasigii qaybta ka ahaa qisadan oo uu adkeeyay inuu ii soo jawaabo. haddaba maxaa xigay? ku soo dhawaada qaybta 12aad ee sheekada mulkiilaha qaranka. si walba oo uu isaga indhatiray su'aalahayga qoraalka ah haddana aniga kama joojin wicitaanka tooska ah anigoo og inuusan marna xiriirkayga uusan isaga farxad gelinayn. waxaanan marnaba ka quusan inaan helo jawaabihiisa. ugu dambeyn wuxuu ii sheegay inuu isagu ogaaday in kooxdan ay ka mid yihiin shakhsiyaad mushahari ah oo isugu jira Soomaali iyo qowmiyado kale laakiin la nool Soomaalida. wuxuu ii raaciyay inay kooxda ku jiraan dad dhalasho ahaan ka soo jeeda qowmiyadaha nala deriska ah oo qaarkood ku nool qaaradaha Ameerika iyo Yurub, kuwaas oo dhowr jeer laga banaday isku dayo shirar ay doonayeen inay ku yeeshaan halkaas kuna sheegtaan inay yihiin qowmiyad deegaan ku ah Soomaaliya oo la boobay, balse arrinkaas ay socon weyday markii ay arkeen dhalinyaro iyo aqoon-yahano Soomaali ah oo durbadiiba la diriiray fikirkoodaas curinaya qowmiyad aan ahayn Soomaali. wuxuu ila wadaagay tusmooyin iyo xaqiijinaya inay dadkan yihiin kuwa u muuqda inay fursad u arkaan isbeddelka ay qowmiyadda Oromada ka samaysay dalka Itoobiya, maadaama labada dowladood Soomaaliya iyo Itoobiya ay haatan yihiin saaxiibo aad isugu milan si ka sii dhow dowladihii hore. waxay arrintan dhiirigelin u noqotay dad markoodii hore ahaa qabaa'ilo Soomaaliyeed laakiin asalkooda aaminsan inay yihiin Oromo inay la soo baxaan wajiyo doonis adag xambaarsan. waxaana haystaan 2 kalsooni oo kala ah. tan hore mid siyaasadeed oo ay u arkaan in Soomaalidu u dabacsan tahay Itoobiya, sidaa darteed madaxda iyo xafiisyada dowladaha ay ka helayaan soo dhaweyn iyo fududayn wax badan oo danahooda ah. laakiin taas waxaa mar walba beeninaysay qabiilada Soomaalida. waayo markii ay isku dayeen inay qabsadaan shirar waxaa ugu horeeyay caqabad ku noqday beelaha deegaamelaha ay qorsheynayeen inay ku muujiyaan awoodooda ama saameyntooda deegaan ahaan gudaha Soomaaliya. meelahaas ay caqabada kala kulmeen waxaa ka mid ah Muqdisho, Somaliland iyo Puntland. tan labaad waxay u arkeen fursad inay maanta haystaan tiro dad ah oo ku filan inay Soomaalida la sheegtaan xaafado ama deegaano gudaha dalka Soomaaliya. taas waa qorshe baaxad lahaa oo markii dambe ay ku baraarugeen aqoon-yahano, culimo iyo xitaa maamulada dalka qaar sida Puntland iyo Somaliland. waxa ay dib u celiyeen kumanaan Oromo ah oo si qulqul ah ku soo jiirayay xuduudaha dalka. intooda sii taariibta waxaa ka badnayd mar walba inta nagaata ee ku milma dadka Soomaalida ah kadibna qaata baasaboorka Soomaalida ayagoo sheeganaya mar walba hadba qabaa'ilka ay la nool yihiin mid ka baxsan ama ka fog. marka ay waqooyi tagaan ay sheegtaan qabaa'ilada ku nool koonfurta Soomaaliya, marka koonfurta ay yimaadaanna ay sheegtaan qabaa'ilada waqooyi ama bari. wuxuu intaa ay ugu daray siyaasiga in barnaamijkan markoodii hore ay ka wadeen gudaha dalkooda laakiin ay noqotay khibrad ay u soo waaridaan oo haddana ay ku soo dhexgeli karaan Soomaalidan goofyada iska soo eegaysa ee mid walba leh xeradeeda ay ugu filan. sidaa darteed weerarka dhinaca warbaahinta ama baraha bulshada wuxuu duufsanayay welina qaldaa dhalinyaro badan oo marka dambe ku baraarugaya ayagoo difaacaya in la adoonsado. waan oromownay ayuu hadalkiisii igu soo gaabiyay.
waxaan ula noqday barihii jaamacadda ee iga saacidayay wax badan oo faham ah. wuxuu ii sheegay in qowmiyadahan ay la xididaysay gabdho ka guursanaysay Soomaalida tan iyo 80-maadkii, waliba ay jiraan maanta rag badan oo xilal ka soo qabtay dalka ama haya oo asal ahaan hooyadood ay Soomaali tahay kuna abtirsada abtiyaashood, laakiin ayagu ay yihiin Oromo, aaminsan inay Soomaalidu tahay jaahilin aan kala dambayn oo boobtay dhulkii Oromada. dadkaas waxaa xiga kuwa leh maanta ganacsi iyo shaqooyin ay ku dulhayaan ahmiyado kale. halkaas waxaan ka baranaynaa in gudaha mar hore la isu soo galay, mar walbana way dhalan kartaa kala duwanaanshaha qadiyadda qowmiyadeed. maxaa keenay in dad Soomaali sheeganaya ay shalay ku soo duuleen dad kale oo Soomaali ah ayaga oo markaas bedeshay luqadii af Soomaaliga ay muddo ku soo noolaayeen, qaatayna inay ku faanaan u dhalashada iyo ku hadalka af aan horay looga maqal ayaga. sidoo kale maxay ku doorteen inay ku faanaan inay yihiin dad Soomaalida ka awood badan maanta oo la yiraahdo Oromo? haddii jawaabtan la helo, ujeedadu way caddahay. aan eego dhanka kooxdii. tirada dhalinyarada aan ku casumay qolka waxay gaartay 23 qof oo ay 2 gabdho yihiin. inteennana waxaan samaysanay qol yar oo gaar ah oo aan ku kala tala qaadanno, ku dejinno qorshayaal aan wax kaga bedelno kooxdaas garanwaaga ah, ilaa aan gaarsiinay inaan soo jeedinno dhismaha guddiyo kooxda ah. maadaama la gaarayo guud ahaan dadka meesha ku wada jira in ka badan 200 oo ruux, si loo kala faa'iideysto ayaan sameynay guddiyadaas. 23-keenii 8 ka mid ah ayaa ka mid noqday 3 group oo la sameeyay durba, sida ilaalinta qolka guud ahaan 2 annaga ku yeelanay, dejinta qorshayaalka qolka oo 7 ahaa 3 annaga ku yeelanay, xalinta khilaafaadka guud ahaan 11 annaga 3 ayaan ku yeelanay. wax badan uma aanan sii kaadin ee waxaan bilownay isku day aan ku bedelno magaca guud ee qolka oo aan soo jeedinay inaan ka dhigno halkudhig qiimo leh oo dhahaya Soomaaliya Soomaali baa leh. arrinkaas xiiso iyo xasaasiyad labadaba wuu lahaa, laakiin haatan keligay maahan oo rag iyo gabdho iga sii culus ayaa fadhiya madasha oo guddiyadan ka mid ah. waxaa dhalatay xaalad cakiran oo ismariwaac ah ilaa lagu wareejiyo arrinta guddiga arrimaha khilaafaadka ee aan ku lahayn 3 xubnood oo mid ay tahay gabar ragga ka sii qadiyad kulul. doodu waxay socotay maalmo, isla maalmahaas waxay canaan kulul si joogto ah ugu socotay Master Wadani, isagoo sida waran la soo ganay ah ayuu xawaare iyo xamaasad kulul igu soo galay. maalin wicitaankiisa kama jawaabin, waayo waxaanan jeclaysan kelmadaha qoraalka ee uu ii soo hormariyay ka hor wicitaankiisa. 2 nin ee baraha bulshada naga waali jiray, midkood wuxuu noqday garabkeenii, wuxuuna ogaaday haddii uusan isdabcin in la baran doono. wali xaalkiisu maahan Soomaali jacayl oo waayo qadiyadan inta aynan annagu iman goobta bay ahayd inuu wajaho, laakiin hadda oo ay xaaladdu tahay bannaanka ii soo bax way adag tahay inuu gudaha ku haro. sidaa awgeed waa inuu qaataa doorkiisa. maxaa u dambeeyey gruubka? waa maxay xaqiiqda? la soco qaybta 13aad.